maanta waxaan rabaa inaan kula wadaaga 9 arrin oo aad u xun oo qalbigaaga jiro u keenayo iska ilaali. Alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah wa joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa xalaqadii 18 oo ahayd duruus qof walba muslim u baahan yahay. walaalayaal cashirka hadda la soo dhaafay xalaqadii 17 waxaan ka soo sheekaynay ahamiyadda uu qalbiga leeyahay. qofkii raba inuu dhageystana linkiga hoos aan soo gelinayo ha ka dhageysta insha Allah taala. maanta waxaan rabnaa inaan ka sheekeeyo asbaabta keenta ama waxyaalaha keena qalbigaaga inuu xanuunsado. maxaa waa maalmaha saa aragteen waxaa batay kan ha cunin kan ha cabin jiradaas uu ku keena kanuu ku sameeyna sokorto kor ku qaada ayilo ku keena. ceeb ma ahan qofka arrimahaas inuu barta ama uu iska ilaaliyo, ceeb ma ahan, laakiin waxaa ka sii muhiimsan qalbigaaga waxyaalaha jirada uu keenay inaa ogaatid oo iska ilaalisid. sidaa darteed maanta waxaan rabaa inaan kula wadaaga 9 arrin oo aad u xun oo qalbigaaga jiro u keenayo iska ilaali. tan ugu horeyso jiro u keenta qalbiga waxa waay aljahl. qofka inuu jaahil yahay. jaahil markaan dhahayna ma aha qofka inuusan wax aqri karin ama uusan qori karin. jaahil markaan leenahay waxaan ka wadnaa waxa waa qofka diintiisa aan waxba ka garanin. waxaa laga yaabaa qofka inuu wax qalad u sheego, cilmi uu ku celiyo ma haysto, ama cilmi uu isku difaacan ma haysto, sidii qofka inuu ku jiro. hadda ka hor waxaa dhacday wiil muslim oo waalidkiisa ku soo dadaalay laakiin dhinaca diinta ma dhinac kale uu ku soo dadaalay ayuu wadan gaal u soo diray. wiilkii waxaa helay nin gaal oo qatar. wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan ku weydiiyo caqli galmiya shimbir dhagax soo tuurtay inay maroodi disho. markaasuu wuxuu ku yiri maya. markaasuu ninka gaalku wuxuu ku yiri ka warne dadaa waxaas rumaysan oo diin u haysto. wuxuu yiri waxaas diin ma aan qofkii haystana waa jaahil. ninkii gaalka uu farxo wuxuu ku yiri muslimiinta saas tira. markaasuu yiri wallahi ma dhahna ana muslima man rumaysni waxaas. markaasuu wuxuu ku yiri aqri suurat alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. cunuga abiisu soo wacay abiisu weydii abi wuxuu ku yiri waa suurat waa ilaahay soo dejiyo wanaagsan. markaasuu yiri hadii saas tahay ba muslim bamiya yani ku talagal maanta wixii ka dambeeyay. hadaba sida jiradaas aaga badbaadid wax baro, diintaada baro. tan labaad waxa waa fitnada. fitna markaan dhahay waxaan ka wadaa qofka inuu wax ku fitnoobo, waxyaalo xun fiirsigeeda inuu ku fitnoobo, gabdho la socod inuu ku fitnoobo, khamr cab inuu ku fitnoobo, wax inuu ku fitnoobo iska ilaalin waayo. tan saddexaad waxa waa ash-shahawaat. shahawaat maxaa laga wadaa? shahawaadka waa laba mid ka mid ah. ترك الواجبات. قفك وحو إلهي كواجبي إنو كتب سيد صلاة واجباتك وكلا صلاة الصبح والربا إنو صاقع نفتا وحيرادها كعين السيحو. شهواتك وحي كالون وقن كرتاي فعل المعاصي. قفك إنو معصي سمي، خمرة إنو عبو، ربا إنو لتعامل، رشوة إنو قاتو، زنا إنو سمي، وحكستوحن إنو سمي. تنأفرت الغفلة عن ذكر الله. قفك إنو كتب حسيتانك إلهي، ذكرك إلهي. قفك ذكرك إلهي هدو كتك قلبك سوو قللا، هدو ذكرك إلهي وظنه قلبك سوو دقا. إلهي سبحانه وتعالى وحوي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورهوي ذكرك إلهي أي قلبك كحصلا. تنشنا ذو كينتو جرذا قلبك كينتو وحاواي رفقة السوء. قفك إنو سميست أصحاب حن. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قفك وحو هايست الدين تساحب كيس إيه قفكين هفيري قفك والله صاحباي. تنلحاد وحاواي أكل الحرام. قفك إنو عنو وحيالها حرام بزنسو ليه دتكو غشا، حولو ليه دتكيو خيانة، ربو قاضنا، رشو قاضنا. تنتضبات والغيبة حنتا waxay keentaa jiro qalbi iska ilaali. hadaba xan maxay tahay? dadka qaarkood waxa laga yaabaa xantaba inay wax kale u yaqaanaan. nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa inaaga jawaabay su'aashaas si fiican u dhig. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dhikruka akhaaka bima yakrah. walaalka inaa ku sheegtid wuxuu dhibsanayo. saxaabadii waxay yiraahdeen yaa rasuulallah waxaan ku sheegay haduuba leeyahay ka waran, ceebtan ku sheegay haduu leeyahay maxaa xan ka dhigay. markaasuu wuxuu yiri hadaa ku sheegtid wuxuu dhibsanayo waa xan, wuxuusan lahayn hadaa ku sheegtidna waa buhtaan, waa been abuur. tan sideedaad waa annamiima. namiima maxay tahay? namiimo waa in dadka la isku diro waaye. namiimadan ama isku dirkan wax la sameeyo waxa ugu xun waaye.
qof ina hadalka qaadid qof kala geesid xataa hadduu run yahay haddii dhib keenayso waa xaraam nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri annamaam qofka dadka isku diro laa yadkhulu aljanna janno ma galo tan sagaalaad oo ugu dambayso keento jirrada qalbiga waxa waaye الانشغال بالدنيا قفك الدنيا ده إنه إسراع الدنيا قفك إنه إسراع سيا لجمو قفك إنه شقيست نلو في عن كنا ولا عضا أما در في عن وكجشت أما جاري في عن وكجت لجمو لكن وحال لجوض إنه واجبات سمي لها أعجتها عشان الدنيا ذا صلاة ما تكنا علشان شقدي مصومايا علشان شقدا واجبك وحو أعجتها علشان شقو أما وحو البابدين عو إسكدي وحا كليكم مشغول سيوا الدنيا سدوا لعقوا أرورين لها حلال إيه حرام مكلا سهرايا taas jiray keenta iska ilaa hadaba walaal maanta waxaan ogaanay sagaal arrin keento inuu qalbigaaga xanuunsado hadaba qalbiga jirrada ku dhacdo maxay tahay jirrooyinka qalbiga ku dhaco walaalayaal waa sagaal hadaa rabtid inaa ogaatid oo inuu xalaqada soo socoto insha Allah ta'ala ugu dambeyntii walaalayaal nafteyda iyo tiina waxaan u dardaarmaa inaan iska ilaalino sagaalkan arrin oo qalbiga حنون أوكي وحن كلو كاعد سنة يناسفي عن أدقيستيد كعمل فشيد ولا لها كلنه وسيقود بسيد بخيل هالنقونين ولا لها خير كلا جعل جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه حلقة صوت إيو جروين كقلبك كل عام حيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله